Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale koorso bilow dhammaystiran oo ku saabsan barnaamijka Adobe Illustrator. Si aad casharkan uga faa'iidaysato uma baahnid inaad aqoon hore u leedahay graphic design ama drawing. Waayo koorsan waxaa ugu talagalay inuu ka faa'iidaysto qof bilow ah oo had iyo kow u baahan inuu wax ka fahmo softwarekan ilaa heer meel lixaad ah. Koorsan intay socoto waxaa ku shaqayn doonaa qaar ka mid ah projectyada aan u qabto personal page-kayga Koosar iyo macaamiisheeda shirkadeeda Gobolas adeegyada u qabto qaar ka mid ah. Koorsan waxaa ku baran doonaa xirfado iyo farsamooyin lagama maarmaan ah si markaad koorsan u dhammaysato aad u samayn karto projectyo dhab ah oo aad lacag ka samayn karto. Farsamooyinka aad koorsan sida bilaashka ugu baranayso waxaa ka mid ah adeegsiga toolisada kala duwan ee lagu shaqeeyo barnaamijka Adobe Illustrator, doorashada fontisyada iyo sida loogu bedelo shapes ama logo, sida loo isticmaalo grid lines-yada kala duwan, tusaalooyin dhowr ah oo aan ku sharxi doono sida loo sameeyo boorar iyo wixii la mid ah. Barashada graphic design waa joogta halka aad ka baran lahayd farsamooyinka iyo khiyaanooyinka xirfadaha si professional ah weliba qaab bilaash ah. Magacaygu waa Cabas, waxaan ahay nashqadee. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channelkayga soo booqato, fadlan subscribe ii saar, like saar muuqaalka oo saaxiibada la wadaag, wixii aragtida qaybta faallada inoogu reeb. Saaxiibadeeda qiimaha loo isku soo noqod wanaagsan, waxaan koorsadan si faahfaahsan ugu sharxi doonaa Adobe Illustrator oo aan isleeyahay aad ay muhiim u tahay markaad tahay graphic designer inaad wax badan ka taqaanid. Way fiicnaan lahayd haddii uu computerkaaga kugu jiro oo waan isla sii jaan qaadi karnaa, laakiin dhib malahan haddii uusan kugu jirin waxaad kala soo degaysaa applicationkan softwarekan loo yaqaano Get into PC. Halkan ayaa waxaad ku qoraysaa Get into PC, dan website-ka saar ayuu kugu soo muuqan doonaa. Halkan waxaad ku qoranaysaa softwareka aad rabtid. Dan anaga waxaan ku dhufanaynaa klikan oo 22ga. Qaybta ugu hooseysa ayaan imaanaynaa. Computerkaaga haddii uu qaabilayo 64 bit ama uu yahay waxaad dooranaysaa 64 bit, dan wuu kusoo degi doonaa. Hadhow markuu kusoo dego wuxuu ku weydiin doonaa maxaa la lahaa ii sheeg passwordkan waxaa ku ah 123 ama 123. Dan markuu kuu soo dego gudaha usoo gali doontaa password 123 uu ku yahay. Qaybtana kusii dhufanaysaa, dan setup ayaa kusii dhufanaysaa. Setupka markaa ku dhufatid wuxuu kusoo bandhigi doonaa yes iyo no. Waxaa leenahay yes. Markaa yes dhahdid sana looxadan ayuu kusoo bandhigi doonaa. Qaybta language-ka English saaranaysaa. Luqado badan oo leeyahay, marka laakiin ani English ay saaran aad luqada aad ka dhigo adaa go'aan kale. Halka location-ka aan default ku daaya ay default ku deyn kartaa oo sida ayuu ku dhigi doonaa. Tan continue ayaa leedahay. Meeshaan oo grey-ga ah ujeedaan ayuu wuxuu kugu soo bandhigi doonaa boqolkiiba inta uu marayo download maxaa la installation-kaaga. Dan markuu dhameeyo asaa wuxuu ku dhihi doonaa done, close ama launch ku dhihi doonaa. Dan markaas waa soo gali doontaa. Ani mu baahnina mar labaad ku soo computerkayga waayo hore ayuu igu jiray. Iska soo xiri doonaa, hoos ayaan iska dhigi doonaa. Dan waxaa soo kici doonaa computerkayga maxaa la Adobe Illustrator-kayga. Wajahadan ayuu ii soo bandhigi doonaa. Dan Adobe Illustrator, Photoshop haddii uu yahay, Illustrator haddii uu yahay, Adobe software-yada dhammaan waa isku wada mid. Isku qaab ayay u design garaysan yihiin. Dan qaybtan ayaa waxaa ku dhufanaysaa file-ka, waxaa leedahay new waa leedahay. Shortcut waxaa leedahay Control N waa dhigi kartaa. Dan meeshan waxaa ku qoraynaa tasti oo kale. Halkan 200 oo centimeter oo yahay, intan 150 centimeter oo ka dhigan 2 mitir iyo 1 mitir iyo bar. Qaybtan oo CMYK-ga dooranayna, RGB-ga daarta dooran kartaa, laakiin waxaa kaga fiican inaad CMYK dooratid maadaama Illustrator-ka factory waxaas lagu sameeyo. Dan waxaa leenahay create. Saaxiibada qaaliga ah waxyaalaha qaar aan bilowga fahansan noo dulqaata. Waxaan koorsan ugu talagalnay bilow oo qof aan weligiis Adobe Illustrator isticmaalin si uu maxaanaha nala sii qabsado. Haddii aad taqaanid nala sii faa'iideyso si saaxiibadana kale ee bilowga ah ay wax badan uga faa'iideystaan. Wajahadan hore ayuu kusoo bandhigi doonaa. Markuu kusoo bandhigo qaybtan waxaa loo yaqaanaa toolbar ama toolbox.
toolbar loo yaqaanaa. qaybtan waxaa loo yaqaanaa layer banner. qaybtan waxaa loo yaqaanaa layer box ama toolbox loo yaqaanaa. dhima lahaan toolasha noocyada kala duwan waa isla fiirin doonaa. dan waxaad imaanaysaa qaybtan meeshan waxaa ka dooran kartaa hadba sida ay noqonayso maxaa la dhahaa toolashaas ay noqonayaan toolbarkaaga sidoo noqonayo ayaad ka dooran kartaa. ana hadda waxaa ii saaran automation ii saaran. ada waxaa ka dhigan sidoo kale global jiro oo aad diyaariyey saana igu soo muuqanaa. haddii aad rabtid automationkan aan jeclahay badan aan ku isticmaalaa. 5 cell glass ka dhigan kartaa. hadba adiga nooca aad rabtid ayaad ka dhiganaysaa. haddii aad tusaalahaan oo kaleente waxa oo web design kala xiriirka sameynaysid sidoo kale midkan ayaad dooranaysaa. macnaha wuxuu marka web design aad dooratid toolasha aad u baahan tahay ayaa ku sameyn lahayd oo ku soo diyaariya. waxaa ku laabanaynaa automationkan anisaan oo igu diyaarsan yahay. dan waxaa imaanaynaa hadda qaybta aan gareeyo meeshaan banaan u jeedaa gareey inoo tahay. qaybtan gareey tahay. marka qaybta aan daartid kalarada iyo waa kala bedeli kartaa oo kalarka aad aragtaa ka dhigan kartaa. tusaale kale waxaa leenahay edit waa hoos u soo degaysaa. meeshaan ay ku qoran tahay appearance adoo muuska haayo. dan waxaad dooranaysaa general ama si fudud waxaad dhigi kartaa control K waa same waaye. dan marka control K dhahdid afan edit ku laabo appearance dheh. dan waxaad dooranaysaa user interface markaad dooratid qaybtan ayaad imaanaysaa. markaasaan dhahdid illustratorka wajahada saan ayuu noqonayaa. macnaha asaa cadaan ayuu ku dhawaanayaa. markaatan dhahdid cadaan oo toos maaha laakiin cadaan xigeen waaye oo gray ku jiro. haddii qaybta imaado madowg saan ku noqonaa. haddii iftiinka indhaha ku dhibaayo dark ayuu kaaga dhigaa. waa qaybta brightness-ka. haddii qaybta u baahda gray ayuu kaaga dhigaa. anaad qaybtan uu yahay maxaa la dhahaa isla okay leedahay. waxaa ku laabanaysaa edit appearance ayaa ku tagaysaa. dana general aa leedahay. shortcutsna waa control K. generalka waxyaalaha aad ugu baahan tahay waxaa kamid ah grid lines-ka. waxaan oo dhan waa ku tegi doonaa. grid lines-ka hadda ani kalarkaan ii saaran haddii aad rabtid guduud ka dhigan kartaa. tusaalahaan oo kale guud okay dheh. dan waxaa leedahay tusaalahaan oo kale control R markaa dhahno oo hal grid line aan soo sameynaynaa. jida hadda ana guduud ii yahay guduud ka soo dhig. haddii aad rabtid kalarka waa ka bedeli kartaa oo waxaa ka dhigi kartaa kalarka hadda aan ii ahaa edit aa leedahay afan edit dan appearance dan waxaa ka tagaysaa general. dan halkan waxaa imaanaysaa grid lines. qaybtan waxaa kasii tagaysaa ayaa leedahay. kadib waxaa leedahay okay is okay dan okay jida war hadda waa isbedele. marka waa iska qariyo iska dareedina. haddii aan intaan soo fahantay waa si fiican. qaybtan waxaa u baanaynaa oo layer bannerka. qaybtan waxaa laga fiiraa kalarada iyo noocyada. tusaalahaan oo kale kalarada iyo waxaa meesha laga doortaa. isla meesha markaa imaatid waa color guidance waaye. halkan ayaa inta badan la isticmaalaa oo switcheska kalarada aad dooranaysa cadaan oo kaleente haddii madow yahay haddii kalarada isku darsan ay tahay waa hadba kalarada aad rabtid halkan ayaa ka dooranaysaa. qaybtan waa qaybta gareyga oo nooc walba oo garey ah ilaa cadaanka u dhow inaad dooratid waa qaybta switchka loo yaqaanaa. qaybtan aan imaanayno waa brush waaye. waxaa laga doortaa noocyada kala duwan ee brushka. qaybtan waa gradient-ga waaye. tusaalahaan oo kale kusaan yahay. qaybtan filka aan doorto waxaa ka dooran kartaa gradient-ga iyo noocyadiisa kala duwan asoo midka dhexda ka sameynayo iyo asoo isku dhex darsan. soo marka qaybtan gradient ayaa lagu talagalay ayadana waan ku tegi doonaa. qaybtan hoose imow. qaybtan waa waxaa lahaa pathfinder aa lahaa waa waxaa loogu sameeyaa tusaalahaan oo kaleente
shayba sameeynaa waxaan dooraneynaa colorkan waa alt ya qabaneynaa alt kadib muuska saan usoo daraan gareynaa copy ka dhigan tahay then labadan shay Pathfinder markaa isticmaalayo salaanka saamka kala jiro kii oo dul saarnaa ayuu u jirayaa kan dursad markaa dhaho labadan waa isku daraya kale way isku darsamayaan hal shay bay noqonayaan haddii aad dhexda ka jirayo kale saas noqonaysa Pathfinderka waa shaybiska qaabka isku maaj gareynaysid ayuu kugu sameynayaa isla shaybka jiro qaybtan qore macnaha waa alignment yaa loogu taga alignment waayo waxaa leedahay isla highlight gareynay dan mid aad dooranaysaa dan qaybtan waxaa leedahay ama inta imaano waxaa leedahay qaybtan vertical alignment topka qaybta sare iyaga alignment garee imaanayna artboardka had waxaa kuu samaysan hal artboard waxaa leedahay shift iyo waxaa imaanaysaa qaybtan artboard dooro shift iyo then waxaa leedahay halkan imaw shift iyo markaa dhahay shift iyo markaas ku qabatid oo saan kugu doormo artboardka waxaad imaanaysaa qaybtan waxaad dooranaysaa calaamadan oo new artboardka plus soo marka hadday hal ahaa waxaa kuu doorsamay ilaa low soo marka iska daleedeynaa halkeen artboard ku shaqaysanaynaa haddii intaas ay la socotid waa si fiican then waxaa imaanaysaa qaybtan ay qorantaa layerska tusaalahaan oo kale waxaa sameynaynaa hal layer ay samaysay labo waxaa sameynayaa text oo kale sorry waxaa leeyahay text oo kale layer kale waaye waa adiga qaybtan waxaa laga maamulaa layerada tusaalahaan kale kan iyo kan waa isdul saaraa tusaalahaan oo kale midkan oo textiga waa loo gareynaa la dhaqaajin kari sorry waxaa sameynaynaa low waaye marka midaan textiga dooranaa layer cusub sameynaa then waan dul geynaa soo marka textiga markaa loo gareeyo shaybka la dhaqaajin karaa textiga la dhaqaajin karo ujeedaan waa loo gareysay hadda shaybka loo gareynaa textiga fureynaa shaybka textiga dhaqaajin kartaa laakiin shaybku dhaqaajin kartid halkan waxaa laga maamulaa layerska iyo noocyada kala duwan soo marka hadii intaas la fahantay waa si wanaagsan iska soo xireynaa qaybtan toolboxka marka uu imaano file soo fureysaa marka file soo furtid qaybta waxaa laga soo abuuraa documentiga waa tii hadda soo arkeynay qaybtan waa template ahaan oo soo diyaarinaysaa qaybtan marka imaadid waxaa kasoo gelinaysaa document ku diyaarsan oo illustrator oo kale ama sawir oo kale tusaalahaan oo kale kan markaa soo gelino tusaalahaan kale kan aan soo gelinay iska soo kansalaynaa file ku laabanaysaa markaa file ku laabatid waxaa leedahay waa iska soo xiraysaa waxaa iska soo xiri kartaa hal shay oo kale oo midkan tastiga ayaa soo xiraysaa hadda inaan iska xidhan marno haddii aad dhahdid close all waxay noqonaysaa labadan oo window waa inoo furan oo laga xiro ma rabno qaybtan oo imaanaysaa waa safe waaye keliya caadi wuxuu kugu save garin daatada laakiin meel makuu dhigaa qaybtan safe as ka imaanaysaa then waxaa sameynaysaa documentiga meesha aad rabtid aad dhiganaysaa magaca ku qoranaysaa okay yaa leedahay qaybtan oo placeka ah waxaa loogu talagalay tusaalahaan kale drawingka markaa loogu sameynayso oo kale sketchka aad samaysay halkan laga soo geliyaa tusaalahaan kale waxaa leenahay qaybta waxaan dooranaysaa template okay yaa leedahay ujeeda hadda waa soo gashane soo marka kan hadda ma dhaqdhaaqa way soo dhaqaaqan mataqaanaa template markaa dhahay oo hore meesha isku diyaariyey logna uu geliyey soo marka haddii aan rabo inaan ogaado inuu log ku jiro in kale waxaa imaanaynaa layerka then layerkii aan soo gelin waatana oo templateka ee noogu qoran tahay
بس waxaa ka qaadaynaa logi had mujida waa isticmaali kartaa macna waa isticmaali kartaa soo marka qaybta editka imaw editka waxaa la edit gareeyaa haddii aad ka gareynayso oo aad jirayso kale qaybta editka imaw waxaa laga sameeyaa unclear oo kale redo oo kale kalaabasho kad ina wax oo macna control x dhahdo kale ama iska tirto kale copy waxa shay aad copy-inaysid shay aad paste-inaysid shay aad paste ku dhigaysid isla meesha hortiisa kale shay aad maxaa lahaa paste back u dhigaysid kale inta waxaa imaanaysa objectiga asin waxaa ka soo gelin kartaa waxyaalo badan qaybtan oo kale inta ina group dhahdid transform ina dhahdid salahan oo kale object ay imaanaysa transform ardayna ku sameysid waxaa leedahay transform move oo kale soo marka move oo kugu sameeyay copy ahaan oo kugu sameeyay tan waxaa ku laabanaysa objectiga waxaad leedahay transform waxaa leedahay rotate iyo range macnaha waa bedeli kartaa hadda 30 degree waayo waxaa leedahay 35 leh inta preview qaad adan ku celi 30 ku wareegsaday copy adoon dhihin okay leh marka waxaad ujeedaa hadday saano ku ahaa kadib saano ku noqday soo marka objectina waxaa ka sameyn kartaa rotate-ka reflect oo kale reflect waxa waa meesha uu soo jeeday yani dhinaca kale u jeedaysid asala horizontalka okay soo marka iska soo delete waxaa ku laabanaysaa sorry shape noo samee centerka inoo keen objectiga tag intaan markaa fahantid shayga soo sameysanaynaa objectiga tagaysaa then waxaa imaanaysaa group haddii ay shayo badan yihiin salaan oo kaleente salaan oo kaleente object aa leedahay waxaa leedahay group waa hadda labadan hal group ay isku samaysan yihiin waxaa rabaa inaan kala qaado object aa tagaysaa waxaa leedahay group waxaan u imaanaynaa qaybtan oo toolboxka ama tool layerska ayaan u imaanaynaa toolkan waxaa loo yaqaanaa selection tool tusaalahaan oo kale markaad dhahdid tusaalahaan oo kale markaad dhahdid kan waa selection tool waaye waxaa ku dooranaysaa subjectiga ama objectiga ku dooranaysaa laakiin midkan waxaa lahaa direct selection waxay ku kala duwan yihiin midna wuxuu ku doorayaa hal anchor point oo ay ku doori karaa laakiin midkan oo ah theme ka doorto waa midkan selection toolka ah asi ma ku doorayo macnaha hal meel ma ku doorayo laakiin kan waa guud ahaan ay ku doorayaan kan waxaa lahaa selection tool kan waxaa lahaa direct selection tool direct selection toolka waxaad awood u leedahay inaad maxaa lahaa hadba dhinac hadba meesha aad rabtid inaad maamushid macnaha direct selection toolka waxaad u imaanaysaa pen toolka waxaa sameynaysaa drawing waa ku sameyn kartaa dan kaligaa leedahay waxaa sameynaysaa tusaalahaan kale bounty aa ku dhufanaysaa dan bounty kale markaa imaadid waa drag gareynay okay dan waxaa ku dhufanaysaa bountigii hore waxaa leedahay saas soo dir marka hadda saan waxaa ku sameysay caleen soo yareynaynaa saalaan oo kale inkastoo 100% ahayn haddana waxaa sameynaysaa saalaan kale saamka dhahdid waxaa rabtaa inaad toosisid selection toolkan ka caawinayo oo inaad toosin ka caawinayo waa wuxuu ku fiican yahay wuxuu ku qaban karaa inuu hal shaqo ah inuu hal mar
uu selection karaya ayuu ku caawinaa. laakiin direct selection toolka ama aad taabanaysaa wuxuu ku doorayaa maxaa la lahaa ankarka. hadda saana kale inta waxaa ku leedahay click. marka click ku dhahdid qaybtan ayaa qabanaysaa saan marka dhahdid hadba siyaarta ka dhigan kartaa. saana kale hadda caleenta markaa toosinaysid xeer saana leedahay hal yar oo bixinay hoos u soo dejinaysaa qaybtan ay imaanaya ankarkaas oo dooranaysaa meeshaas then sina meeshan ka maamulaysaa then waa isku soo dhaweynay waxaa leedahay wili yaree then waxaa leedahay r taabo waa rotate ku sameynaynaa. hadda waa arkayna rotate sida wax lagu sameeyo rotate ku sameynaynaa r dhahay then waxaa leedahay 30 r markaad r dooranaysaa saana ku yahay haalad gareysan tahay v taabo then wada haalad garey amka haalad gareysid r taabanaysaa oo rotate laga wado kana soo qabanaysaa kan calaamadan ah inta ka sanayna waxaa leedahay alt qabo click ku dheh. ka click ku dhahdid qaybtan waxaa ka dhiganaynaa 30 degree iyo wareegsanaa macnaha hadda shape waxaa kuu samaysmay oo flower camal leh. marka ayadoo professional sameynaynaa dhib malahan. then pen toolkaas aad isticmaalaysaa. halkan waxaa imaanaynaa shapekan oo rectangularka waxaa leedahay saaraan kale marka hadda saan usoo doorto saan hadda iskaga sameeyo shapeka ma manage garaysan laakiin control 3 shift marka la qabto jida waa maamushan hal way u socdaa. saan hadda ku fahansiiyo waa soo drag gareena fiiriya waa soo doortay then saan soo drag gareena meel u socdo mataqaan qaab waa maxkameyn kartid macnaha. laakiin markaas shift la qabatid oo saan soo drag gareysid waa taqaan cabir la yaqaano ku socda then shiftiga muhiim waa la qabo way ka sii fududahay marka shift alt isku qabatid oo saas drag gareysid centerka ku yaala ama halkan jida marka hore soo dooro then shift la qabo saas u drag garey ama shift alt isku qabo saas u sameyso. waxaad leedahay right click shapekan dul imaanaysaa right click aad leedahay elliptical ka dooranaysaa markaad dooratid asina sidoo kale shapekaa dooranaysaa dooro balanka tuga dooro then waxaa sameynaysaa shift sande waxaa leedahay falaarta ka soconaysaa ama hoose ama kore ama mid aragtaa ka soconaysaa. haddaa marka celiya balanka tuga soo dooro shift ama alt la qabo then hal gacan gadee then falaaraha ka bedel marna maxaa la anchor pointyada badi marna yar. hadda waa 3 geesood waaye 4 ka dhignay 5 6 7 8 9 10 ilaa ugu dambeyn circle ka noqdo. marka waa shape-kana waxyaalo badan laga sameyn karaa oo saas u isticmaalaysaa. then waxaa imaanaynaa text markaad imaatid laba qaab text waa la sameeyaa. text soo dooranaysaa laba qaab baa la sameeyaa saana ugu soo daraan gareynay text oo dhanba qoraal waxaa ku diyaarsan template then meesha waxaa ku qoraysaa text course Adobe Illustrator then enter soo dheh course enter dheh marka way koowaad waayo text loo isticmaalo waa weyneynaysaa. marka waxaa sameynaysaa text halkan waxaa ka dhigaysaa fontiga bedel
waxaa leedahay blank fontiga ana isticmaalo waaye soo marka intan waxaa ka dhigaysaa sambold qaybtan waxaa ka dhigaysaa bold caadi qaybtan waxaa ka dhiganaysaa waxay noo tahay regular sambold iyo bold font family-gana maxay noo tahay blinker soo marka qaabkan waa loo sameeyaa textiga qaabkan text waa loo sameeyaa way kala jiro oo loo sameeyo textiga ku laabanaysaa kaliya leedahay hal mar aad meesha kale ku dhexay hadaba ku drag-gareynaynay oo sana ugu drag-gareynaynay oo ugu soo jiidayna macna like hadda hal mar aad kale ku leedahay kelibka ku dhahay text aad dooranaysaa hal mar aad kale leedahay dan waxaa ku qoraysaa test course enter deh Adobe enter deh Illustrator soo marka mujida kan saamka dhahdid waxa waaye ka qaldamaa laakiin kan qaybtan hore qaybta koowaad saamka dhahdid waxa waaye waa cabir gooni ay ku yaalaa soo marka kan waxaad leedahay sidoo kale ka dhig inta waxaa leedahay symbol soo marka labadan nooc ayaa waxaa loo sameeyaa fontiga loo isticmaalaa marka labaduba waa isticmaali kartaa adeeg ku xiran tahay soo marka hadda waxaan rajeynayaa inaan isla fahanay qaybtan oo layer bannerka toolboxka iyo tool bannerka iyo maxaa la layer boxka ama toolboxka sida u taqaanida waxaan rajeynayaa inaan fahantay base ahaan toolboxka oo saddexdan oo tools ku horeeyna fahantay toolashan kale inta idin fahmi doontaa dhimalahan waxaan rajeynayaa inaad fahantay toolskan iyo sida loo isticmaalo qaybtan kore oo toolboxka ayadana sida loo isticmaalo inaad fahantay waan rajeynayaa haddii aan intaas la soo fahanay waxaan bixinaynaa kaliya laba tusaale yar oo wixii aan hadda soo qaadanay aan ku sii fahmayno waxaad sameynaysaa waxaad dooranaysaa electrical toolka ayaa soo dooranaysaa dan halkan aad imaanaysaa waxaad sameynaysaa shift waxaad isku qabanaysaa alt dan saan aad drag gareynaysaa qaybtan aad imaanaysaa qaybtan marka waa swap waa fill iyo stroke mid gaar aad dooranaysaa falartan aad ufanaysaa marka stroke rabtid design waxaa jiro stroke iyo fill stroke waa inuu line kaaga dhigo fill-kana waa inuu shape dhameystiran oo xiran uu kaaga dhigo soo marka haddii aad rabtid inuu stroke yahay saana leedahay haddii aad rabtid inuu fill noqdana saana leedahay qaybtan kore qulfaysan soo kor kuugu soo maro haddii aan hadda stroke rabna stroke aad dooranaysaa asaa ku dul dhufaneynaa si uu qaybta kore inoogu soo maro dan stroke ilaa waxaan geenaynaa 15 ilaa 15 aan geenaynaa ilaa 15 aan geenaynaa waxaan sameynaysaa waxaad tagaysaa object waxaad tagaysaa transform waxaad tagaysaa rotate ama waxaa kaaga fudud inaad selection gareysid dan aad taabatid qaybtan hoose imaanaysaa meeshan ayaa waxaa ka dhigaysaa alt mouse-kan kaliya ku leedahay 30 degree copy aad leedahay soo marka control D leh ilaa oo isu soo xiro hadda waxaa inoo sameysmay shape soo marka control D aad ku soo wada xirtay shape-kan aan rabnaa inaan ubax ka dhigno marka see ugu dhigaynaa waxaa leenahay fill aan ka wada dhigaynaa fill hadaa waa kuu sheegay waxaa ku dhahay markaa rabtid inaad fill ka dhigtid falartan ka bedel okay kadibna qaybtan kor soo mari si uu kugu soo hormaro hadda waxaan ku kala saarno yes okay aad saanaan leenahay waxaa imaanaynaa qaybtan layerkay ku qoran tahay waxaa iska soo daleedeynaa wixii aanan u baahnayn oo kale
waxaa leedahay waa soo highlight gareey source ku highlight gareey kana marka hore click ku leedahay control qabo click control qabo oo control keesiyaa click ku dheh dan midaan iska soo wada delete koolo saddex sameyso hal mid sameyso dan waxaa sameynaysaa intaan soo sameyso waxaa qadameynaysaa marka shift em waa shay builder waaye shay builderka marka waxaa loogu talagalay shaybo badan isku daro macnaha marka waxaa leedahay shift m ama waxaa sameyn kartaa asaa dul tagaysaa waa ku dhufanaysaa dan waxaa leedahay waxaa iska soo daleedina alti qabo markaa arti inaad wax ka jirtid alti sameynaysaa okay samka iskaga soo daleedid waxaa leedahay marka hadday alti qabanaysid hadda alti ma qabanaysid tan dooro midkaan dooro midkaan dooro midkaan dooro midkaan dooro midkaan dooro midkaan dooro dan waxaa leedahay midkaan dooro midkaan dooro so marka intaan waxaa leenahay hal layer igaaga dhig marka kan loo garee intaan waxaa leenahay control g deh hal group igaaga dhigay then kana loo gareena kana loo qaada so haddana waxaa leenahay shift m deh ama shay builderkaan soo dooro ama shift m shortcutkiis waaye isku mid waaye kaa dooratidba waxaa leenahay kan dooro kan dooro layer cusub samee marka waxaa sameynaysaa then waxaa leedahay layerkan igey marka midkaana kale loo gareysay kanna waa loo gareynaynaa so marka intaana isku tagaynaa waxaa leenahay control g marka color usi sameynaynaa kana loo garey kan loo ka qaad color usi samee kan waxaa leedahay saarana kale kan dheh marka kana kugu soo haray asi loo ka qaad labadan kale loo garee waxaa leedahay waxaa ka dhigtaa so marka ubaxa maadaama uu si uu reality ugu ekaado waxaa leedahay labadan loo ka saar kan loo ka qaad daba midkaan oo jaalo ah oranjaha dooranaynaa waxaa ka dhigaynaa cagaar oo kale midaa okay kanaa loo ka qaadaynaa labadanaa loo ka saaraynaa waxbaa isku wareegi midka aarabti loo ka saar kan kana loo ka qaad saas la samey bis meeshaan bedelkeed waxaa sameynaysaa saas ku day then waxaa sameynaysaa kan dooro waxaad dooranaysaa oranjaha
sorry kana waa asaasme waa hal mar shift ku laabo waxaa leedahay highlight garee halka highlight gareynaysid direct selection toolka ku dooran san camal aa dheh saas u drag gareynin then shift m dheh marka qaybtan dooro kan kale ku dheh layer samee marka inta kan tag mid walba soo dooro step hada ama disclaimer so marka kan waxaa ka dhigtaa jaalo elliptical kan dooro then waxaa leedahay meeshaas waxaa ka dhigaysaa oo kale cadaan inkastoo aan si fiican loo arkaynin sabeeni waxyar okay so marka hadda waxaa ku samaysme ubaxan wax kale ma ka sameynin shapekan bisa sameynay shapekan bisa ka isticmaalnay iyo shape builderkan labadan tool bisa isticmaalnay so marka intaan hadda fahansan tahay waxyaalo badan waa ka sameyn kartaa boor waa ka sameyn kartaa waxaa ka sameyn kartaa ilaahay ku madarnaade business card wax walba ayaa ka sameyn kartaa muuqaalka labaad waxaan ku sharxi doonaa ama aan ku sameyn doonaa sida boor xayeysiin noocan oo kale loo sameeyo haddii aan muuqaalka ilaa heerka aad nala soo gaartay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka fadlan wixii aragtiya iyo fikraad qabtid qaybta comment inoogu reeb muuqaalka like saar saaxiibada la wadaag ee jecel barashada graphic design iyo wax walbo ku saabsan nashqadeynta subxaanaka allahu bixamd ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk halkan ayay qaybta koowaad inoogu eg tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu